بسم الله الرحمن الرحيم وهرين halkan waxaan ka salaamayaa bahda warbaahinta ganacsatada shirkadaha adeegyada bixiya hay'adaha bixiya adeegyada lacagta elektarooniga ah bangiyada iyo guud ahaan bulshada Soomaaliland waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay maanta bulshada iyo ganacsatada la wadaagaysaa go'aan muhiim ah oo la xiriira hirgelinta nidaamka cusub ee cashuurta adeegyada iyo badeecadaha oo loo yaqaan GST sidii hore ay wasaaraddu u baahisay nidaamka GST ee la dhimay lagana dhigay 2.5% 2.5% waxa qorshuhu ahaa inuu si rasmi ah u dhaqan galo 1 bisha 7 ee 2026 hase yeeshee wasaaradda maaliyaddu codsiyada ka imanaya ganacsatada qaarkood oo si farsamo ah in loo dib loogu eego oo waqti la siiyo ay ku qabtaan waxaan ku dhahdaa farsamooyinka ka dhiman ay ku dhameystaan waxaan go'aaminay in muddo 10 cisho ah dib loo dhigo hirgelinta nidaamka GST-ga sidaa daraadeed nidaamkani wuxuu si rasmi ah u dhaqan geli doonaa 11 bisha 7 2026 sababta ugu weyn ee dib ugu dhigida keentay waxay tahay in ganacsatada qaarkood aanay weli si farsamo ahaan ugu diyaar garoobin hirgelinta nidaamka waxaa jira ganacsato hore ugu daray nidaamkooda 2.5% 2.5% kuwa kale oo weli nidaamkooda ugu jiro 5% hore iyo kuwa kale oo aan farsamo ahaan dhammaystirin arrintaas waxay keentay baahi ah in la helo muddo kooban oo lagu mideeyo lagu saxo laguna habeeyo dhammaan nidaamyada ganacsatada si cashuur qaadistu u noqoto mid cadaalad ah hufan oo si siman loogu wada dhaqmo waxaan u mahadnaqayaa ganacsatada hore ugu diyaar garoobay nidaamyadooda inay ku daraan 2.5% una hoggaansamay tilmaamaha wasaaradda ganacsatadaasi waxay muujiyeen mas'uuliyad wadaniyadeed iyo faham ku dhisan ilaalinta sharciga iyo ka qayb qaadashada dakhliga qaranka sidoo kale waxaan si cad ugu wargelinayaa ganacsatada aan weli dhammaystirin diyaar garowgooduna inay ka faa'iideystaan muddada 10 cisho ah ee la kordhiyay ayna si degdeg ah ugu daraan nidaamyadooda heerka saxda ah ee GST-ga kaasi oo ah 2.5% ama 2.5% ka hor taariikhda dhaqangalka rasmiga ah oo ah 11 bisha 7 2026 11 bisha July 2026 insha Allah waxaa muhiim ah in bulshada iyo ganacsatada fahmaan in nidaamkan aanu hayn cashuur cusub oo lagu kordhinayo bulshada waa nidaam dib u habeyn ah oo laga dhimayo culayska cashuurta la salbalaadhinayo saldhigga cashuurta iyo casriyeyn lagu sameynayo habka ururinta dakhliga sida horeba bulshada loogu faahfaahiyey heerka GST ee sharci ahaan ahaa 5% ayaa la dhimay waxaana laga dhigay 2.5% si loo yareeyo culayska bulshada isla markaana loo xaqiijiyo in cid kasta oo cashuurta ku waajibtay ay si cadaalad ah uga qayb qaadato dakhliga qaranka waxaa sidoo kale mudan in bulshada loo cadeeyo in marka la eego cashuuraha iibka iyo adeegyada ee dalalka gobolka Soomaaliland ay tahay dalka ugu heerka hooseeya cashuurta iibka iyo adeega tusaale ahaan Soomaaliland waa 2.5% 2.5% Ethiopia waa 15%, Djibouti waa 10%, Kenya waa 16%, Uganda waa 18%. wasaaradda maaliyaddu waxay ku dadaalaysaa in nidaamka cashuuruhu noqdo mid cadaalad ah, casri ah, daafuran, lana taan qaadayo hababka ganacsiga ee maanta dalka ka jira gaar ahaan nidaamyada lacagaha elektarooniga ee adeegyada SAD ee shirkadda Telesom iyo adeegyada e-dahab ee shirkadda Somtel sidoo kale account to account ama xisaab ilaa xisaab lagu transfer gareeyo merchant numberska ama ku iibsada walletiska sida Premier Bank, Amal Bank, IBS Bank iyo hababka kale ee wax lagu kala iibsado oo lagu fuliyo waxaanu noqon doonaa sanduuqa khayr cusub ee mid lagu horumarinayo adeegyada aasaasiga ah sida caafimaadka waxbarashada kaabayaasha dhaqaalaha biyaha amniga iyo adeegyada kale ee muhiimka u ah nolosha bulshada iyo horumarka dalka ujeedadu waxay tahay
in bulshadu si muuqato u aragto faa'iidada cashuurta ay bixiso oo ay caddaato cashuurta ama dakhligaa soo xarooday halka la gelinayo uu noqdo mid muuqda isla markaana dakhligaasi loogu bedelo adeegyo dadweyne oo tayo leh horumar waara iyo mashaariicda bulshada si toos ah u taabanaya wasaaraddu waxay bulshada mar walba la wadaagi doontaa cashuurta iibka hore u jirtay ee aynu samaynay in ay mar walba halka ay ku baxayso iyo horumarka halka laga gelinayo iyo korar kasta oo soo kordha inuu wax ku kordhinayo adeegyadii aasaasiga ahaa sida wadooyinka cusbitaalada in wax laga qabto waxbarashada iyo in la tayeeyo ayaa ka muuqan doontaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.